السلام عليكم شارله kusoo dhawow barnaamijka caalamka teknolojiyadda barnaamijkan uga barateen ka faa'iideysiga ama sheekooyin iyo xogogaalnimo dheeraad ah kuwaas ku salaysan ama ku gadaaman barnaamijkan ciwaanku xambaarsan yahay haddaba haddii aad tahay arday ama qof academician ama arday jaamacadda masterti wada ama PhD ama wax la mid ah ama sidiisa kale xogogaalnimo dheeraad ah raadinaya inuu xog abuuro wax korodhsado intaba waxaanu ku dadaalaynaa maanta inaan halkan idinkugu wadaago dhowr qodob oo halkan ku qaada dhigi doono kuwaas oo aaminsanahay inaad ka wada faa'iideysan doontaan haddaba waxaan ku bilaabi doonaa online learning platforms ama platformska ama golayaasha ama madalada kala duwan ee wax laga barto dabcan waxaan ku bilaabi doonaa mid kulligii wada taqaanaan taasoo yara dhahdaan habeen maalin baan aragnay maxaanu ka faa'iideynaa dabcan waa YouTube inaad isku diisan baan filaya YouTube-ku waa platformka ugu ballaaran maantay ee laga daawado muuqaalka dhageysi aragga intaba ah kuwaasoo free ah يعني أيوة واحد هلي ساب basic أو أساسي أيوة رنتي أول ما إلى حياة جامعة كل دول كلية واحد وبعان تاي مركز لقد تكون هذه نسينا تقرنيس يعني يوتيوب أنت هذا هكا جود بيننا يوتيوب ربطي حقتان كفل إنك كبدن أيوة حبار سنية تطبع لقد هذا كهر مرية تطبع ما دوين كشان عدي من دكتور صار لقانا كسيات سدا ينتاس ينكر لو قدري يوتيوب كوميد كاملة وعاكلوا تشرح كورسيرا سدوا كله إريكس خان أكاديمي Udemy iyo kuwa kale la mid ah Coursera wuxuu kaga duwan yahay asagoo xoogaa inuu yahay for something new, something better. Well, guess what? You can do anything. Who? Me? Yes, you. xoogaa levelka jaamacad degree inuu gaarsiisan yahay oo tusaalahan ku waxay helaysaa jaamacado badan oo ku yaal galbeedka kuwa ku yaal bariga dhexe Afrika qaar ku yaala oo maadooyinkii jaamacadda laga bixin jiray kuwa u dhigma si toos ah looga daalacan karo bal xitaa ku siinay degree-gii ama shahaadad markaas aad dhameysay qaarkood 2 sano soconaya qaarkood 1 sano qaarkood 6 bilood iyo wax kale la halmaala Coursera waa haddii aad rabtid koorsooyin iyo xajmi leh haddii aad leedahay anigu waxaas dhan ma rabo waxaan rabaa dhowr maado oo kooban oo aan kaga bixi karo bil iyo 2 bil Ericus oo kala kamida Ericus aslan waxa aasaasay jaamacadda MIT ee gobolka magaalada Boston ku taala iyo sidoo kale Harvard isku gobol yihiin labada jaamacadood hormuudka u ahaa ayay ahaayeen haddas waxa ku soo biiray kumanaan kun oo jaamacadood oo Mareykanka Yurub Aasiya bariga dhexe Afrika badan ku yaala yani dunida 4 dacalood jaamacado kala duwan ka imaaday ayaa ku midaysan badina waxbarashada meeshaas waxa ku baxdaa English marka English hadda taqaanid level aad fahmi kartid waa mid aad wax ka siyaasan kartid ayaan isleeyahay Khan Academy dhanka kale waa website kale oo wax badan ka siyaasan kartaa waliba haddii marka aad dugsi sare arday dhiganayo kale mathematics-ka physics chemistry maadooyinka asaasiga sidoo kalena waa website runtii wax badan ka siyaasan kartaan kaliya inaad raadisid oo xisaab markeeta wixii waa isu soo taabsay ta macalinku 100% qaab ku sharxayeen aad hadalkiisa erey to erey aad fahanted qasama kaliya qaabka u xalinaya dad fahmi kartid way kugu filantaa tan ardayda waliba dugsi sare wala dhiganaysa ayuu anfacaya marka sidaas waxa jira website badan oo hadda inta idin sheegay ka sii badan oo ayagana wax laga korsado waxna ka siyaasan kartaan hadigo dhanka kale e-books and digital libraries yani electronic books bookada electronic ah iyo manasaadka digitalka ama maktabadaadka digitalka ama caalamka raqamiga ku jira maxaan ka wadaa sidaas maanta markaan joogno Soomaaliya buugaagta ugu dambeysay ama daabacadii ugu dambeeyay ee dunida lagu daabacay way adag tahay inay si degdeg ah ku soo gaaraan way adag tahay inaad markii hesho haddaad tahay arday jaamiciya oo maanta mawduuca marka wax ka baranaysid buugii ugu dambeeyay ama daacadii ugu dambeeyay rabtid inaad heshid dhabti aad ayay adag tahay waa sabab oo ayagu aysan ku olin magaatiba caalamiya dalkeena ku olin waa marka labaad ee logistikada iyo cargo wax lagu dalbado oo aad u fududayn waa marka saddexaad sidoo kale payment systems-ki ardaydu haddii xitaa baati dalban lahaayeen systemkii paymentska oo Amazon iyo meelaha la midka ay kaga dalban lahaayeen oo asagana aanan runtii aanan u wada furnayn marka taa bedelkeeda website-ada kuwa la midka oo e-books-ku waxaad taqaanaan Facebook ama ka aragtaan oo qof Soomaali book soo dhigo comments-ka 90% iyo ka badan waxa ku qoran PDF aan meel wadaag kartaa dadku marka saas leeyihiin rabti dabcan ixtiraam darro ku tahay qofkii book qoray laakiin dhanka kalena waxay tahay dhabtii baahida meesh jirtay tilmaamaysa marka chale website badan ayaa jira oo ka mid yihiin tusaalahan oo kale Genesis Library ama Genesis maktabada Genesis waa mid ka mid ah makaatibta caalamiga digitalka kaliya waxaad u baahan tahay inaad qori taqaanid authorka ama qoraaga buugga marka aad raadinaysid ama ciwaanka buugga ama sidoo kale waxaad ku raadin kartaa ISBN yani lambarka caalamiga ee daabacadaha buugta lagu yaalo oo gadaasha ugu wada yaalo dhamaan kaasoo barcode-ka ama markii la akhrinayo lagu akhriyo
haddii aad taqaanid waad ku soo heli kartaa buug kasta ood ka raadisa ama 10 buug ood ka raadisaan meesha tijaabada waa samayn kartaan 10 ka buug marka ugu yartay 6 ilaa 7 kamida inaad ka heli doontaan ayaan rajeynayaa waa bishardi laakiin buugaas inuu daabacadiisu 4 sano 3 sano ka soo wareegatay hadduu buug isla maanta soo baxay yahay waxaan filayaa xoogaa muddo ay qaadanaysaa ismarkiiba in laga helo sidoo kale manasada Google Books ayaa iyaduna ah mid ay leedahay shirkadda Google oo ognahay mid kamida mashiimada wax lagu baaro ama Google search engines ka ugu caalamisan dunida iskale kaasoo wax badan laga siyaasan karo dhabtii iyo ugu dambeyn maktabadaha caalamiga dhamaantood waxay leeyihiin libraries ay leeyihiin makaatib caalami ay leeyihiin online ka kuwaas oo buugaagta qayb kamid ah ilaa 150 ku dhawaad ayaguna ay u furan yihiin marka buugga aad raadinaysa aslan haddaad Google ku qortid buugga magaciisa plus PDF haddaad dhahdid oo labadooduba quotation mark laba calaamadood gelisid waxa ku soo baxay buuggaas 190 inaad PDF aan ku heshid ayaa suurtagal ah dhanka kale ardayda barata geography-ga science-ka taariikhda kuwa la midka ah marka lagaga sheekeynay maanta xadaaradii labada webi ama xadaaratu bilad raafidayn ama waxa loo yaqaan Mesopotamia maanta marka laga hadlayo kale haddaad Ciraaq tagin iyo deegaanka halka ka dhawan iyo webiga Dajla iyo Furaat way kugu adag tahay meesha inaad takhayushid ama aad markaas ka fikirtid haddii lagaga sheekeynayo webiga Niil haddii lagaga hadlayo ahraamaadka Misr Taj Mahal iyo wax la midka marka laga hadlayo maanta in sawir ahaan loo tuso maahane dhabtii waayii hore way adkeed in si kale u fahanno laakiin maanta ma had badan ka gaartay tiknoolajiyada waxa fududaatay okiyaalaha VR-ka ama virtual reality marka ardaydu xirtaan in fasalka marka arday loo geliyo oo dhagihiina loo geliyo in ay noqon karaan oo kale sida ayagu marka meesha jooga marka adiga arday ahaan kaliya tahay si uga faa'iideysan kartaa waxa jira website fara badan baa jira oo dhamaantood bixiya VR experience oo loo yaqaan virtual reality experience يعني ماشي إنها تشوفت عمله كل كان مركز تلفون كي واحد نوع 3D مركز تلفون كي قبستد أو ساعة ورجسد أما كور أدسد هوس أدسد ماشي إنها تشوفت عمله كاغدية مركز ماشي أصور أهان وحد داون شرتي هذا وحكون صورة جلسة إنها داوتيد virtual museum أو كله يعني متحف صنال متحف virtual أما خيال والتكنولوجيا يعني جامعة بدن بابحية سكول بدن بابحية بالمانتي هيكل كبني آدم كعافمات كيس لفهانات ميل متحفة ميل بوقشة دمانتود وحكوسو تجلس الكمبيوتر كأضو فلاره ورودشينية أما تلفك ورودشينية إن سي كنت وافئة وحقوق سياسة كرتي مركا وأيضا وامد كله أو أوقف إديسن كرتان أرضية ذاتيين أما قفت هذين مش نسلو كله قاب كحيجو أوقف إديسن كرتان وحلو يقان collaboration tools يعني برامج كذا لسكولا المشاركة سؤال أنا كان كان عادي لقيني إنه كله مركان team work أما جروب جماعي لنا برامج نلقوا القراءة فرشان أرضي كل دول لقنا يابينا نسكو مسكن دقنين أو ملك كل دول دقنا هاي وحصلت كل نوع هانشرتي كل برامج جوجل دوكس إن أنت استعمالنا قفل بحلقة كسر قلا هو موجود قيت القرآن هلك كقرآن مرك أنا جينا وأشيء ذا أو كسر صحيا أنا جينا وعجز صحيا أنا مركز ملك الكود هالين أما زوم كود هالين أما واتساب كود هالين إن نصف تقش إن جماعية وأنا ودي تشوج صح وقد القرآن كم مرك أرضي ملك التشوج أما قف أورنيس تيسس كاجا أما بوجا مرك أورنيس أيو كولا تروحان بحين كرا كولا فافريبي كرا واحد بدل كولا سمين كرا أي أساس كلا واحد بدل كولا غضن كرا هذا أديكسنية شركة برامج كذا شركة سؤالها جوجل دوكس على هذا بل حتى برامج كي كان هذا عالم التكنولوجيا مركان ديارين بقول كيف بقول وحنا أديكسا جوجل دوكس أما أنتي حد فكرة دي مهمة يقول صار عدو تلف كتاب فرو أي حلقة كقرنية كمبيوتر كمركان أسمع هذا حلقة سنة كسي وضيع بل هذا إلى هالليو أسرع يعني أديكسنية ولقي ما أديكسده نروح أوفلاين أونلاين كسر أديكسده waxaa kaloo ardaydu uga faa'iideysan kartaa barnaamijyo loo yaqaano note taking applicationada note taking lagu samaysto su'aalahan waxaan arkaa dad badan oo marka SMS isku qorayo kale ama qaab kale yani qofku markuu adeegsanayo wixii fahmo qaabab kala duwan uga faa'iideysanayo dabcan waa mid adig kugu xiran ma jirto hal wado oo lagu guuleystay su'aalahan kale waxyaalahan sameeyaa kamid ah inaan leeyahay group أنا إيجوني واتساب كل حياة لا إيجوني يعني وحي قصي برامج كان وحي قصي جامعة وحي قصي شقة وحي قصي جروبيان لي أنا بس أسكول تشرع هل قصان كقرطة يعني ومبه المكان إيميل فرو أما حق الراديو أما ورقات كل الراديو وقعك وفضل رسميه وحكوا كمان جوجل كيب وبرامج هذا لفته وجود بيجي أصل جوجل أي هذا هاي كاس أو قف أنتوا هول كود ده waxaan isoo markuu ku dhaho intaad la share gareysid ba asagoo ka maqan markii wixii aad keentid ba tig baa saaraysa qofkan halkaan uu kala socdaa ama qof wax ku dirso waxa leedahay soo samee list ii soo dir
tamaam liiska uu sameeyay markuu kula share galayana halkaas ayaa dhammaan kala soconaysaa waa mid ka mid ah waxa kaloo jira barnaamijyo badan oo aad ka mid ah Evernote oo waliba asoo wuxuu ka soo horumarsan yahay password baa ku xiranaysaa log baa gelinaysaa wax la mid ah waxa jira OneNote oo leedahay shirkaddan Microsoft iyo Notion oo asoo mid ka mid ah shirkadii ugu dambeeyay oo fieldigan waliba aad ka mataqaana u balaariyay Notion uu yahay runtii midka ugu professionalsan maantay bal dadka qaar ay sameeyaan intay design iyo naqshad ay u goonay sameeyaan aad u qurxiyaan xitaa naqshadii si iibiyaan waa mid ka mid ah laftigaaga waxa laga yaabaa inaad leedahay qorshe runtii aad u qurux badan oo ku kala hagaagsan oo xitaa lacag u bedeli kartid oo dadka si iibin kartid dhanka kale ardayda jecel inay haddii aad tahay oo kale qof multitasking ah qof asoo shaqo haya shaqo kale ku daray tusaalahan kale cunad karsanaysa dhinaca rabtid wax ka dhageysatid ama jid baad maraysaa dheer ama waxyaalo badan baad samaynaysaa waxaa jira applicationo ama barnaamijyada sida podcasts loo yaqaano kale marka podcast waa si barnaamijyada radioga aan dhageysan jirno raadiyaha ka dhageysan jirno kale laakiin markaan waa kuwa specific ah mowduuc gooni ah waxaa jira kuwa kamid ah Lex Friedman waa nin MIT ka shaqeeya jaamacadda MIT oo scientist wuxuu wareystaa dhammaan dadka ugu caalamisan ee barnaamijka maanta AI-ga artificial intelligence-ga ganacsiga ugu waaweyn Bill Gates Elon Musk OpenAI ragga ku jira dhammaantood hal u wareysto bal madaxda caalamka wareysto weeyaan waa iska jeclaa markii inaad dhageysto marka lagama yaabo ono intaan u soo fariisto computerka inaan waqti badan ku bixiyo oo aan marka ag fariisto lagama yaabo laakiin badan waxaan sameeyaa anigoo shaqo kala wato kale ayuu gadaal iga daarayaan marka haddii xitaa aad tahay qof jecel marka in luqadiisa hormariyo ama carabi ha noqoto ama English ha noqoto ama luqad saddexaad ba ha noqotee waa qaabka ugu wanaagsan oo ku hormari kartaa yani podcast Google podcast way leeyihiin Apple way leedahay shirkad hadda Android haystid iyo hadda Apple ama iPhone phones haystid labadaba mid aad ka faa'iideysan kartid dhabtii wax badan kaaga soo siyaadayaan adoo dhigta kugu jirto waxaaga wato shaqada wato ayaad ku siyaasan kartaa dhanka kale haddii aad tahay arday jecel inuu siyaasado culumta codingka ama programmingka waxaa jira website sidoo kale aad ka siyaadsan kartid waxaa kamid ah free code camp iyo code academy oo la yiraahdo oo dadku wax badan ka siyaasan kartid waxay leeyihiin koorsooyin asaasi ah oo free ah wax badan ka siyaasan kartaan dhanka kalena waxay leeyihiin koorsooyin marka adigu asaaska iska dhistid aad xogaa yar lacag intaad bixisid aad ku sii darsan kartid waliba free code camp asoo tamaaman waa free koorsooyinka qaar oo aad advanced ku ah mooyee markaad halkaas soo gaartid dabcan waana doon sidaad maal gashataa taas ceeb maahan laakiin bilowga hore wax badan baad ka siyaasan kartaa waxaa kaloo sidoo kale dheer online ama social media accounts social media platforms kala duwan baraha bulshada ha noqoto LinkedIn ha noqoto Reddit ama Facebook waxay leeyihiin sidoo kale groups gooni ayay leeyihiin qaarkiin badan oo ay ku xiran yihiin baalga yaab haddii aad jeceshahay tusaalahan kale photography oo kale waxaa jira groups xiran marka waad apply garaynaysaa waxay kule nagu soo biir su'aalaad ka jawaabaysaa ma tahay qof ardaya ma tahay qof caynkan ma tahay qof jecel photography wax la mid ah ha marka dhahdid waxa ku suurtagelaysa inay mataqaana marka ku fasaxaan oo arday kala duwan oo caalamka qadaafisa kala duwan kala imaaday aad wax badan ka siyaasatay bal xitaa intaad wax qortid weydiisid ayuu kaga jawaabayaan dhanka kale haddii aad tahay qof had iyo goor wax baara oo culumta qaybeed kala duwan baara website-da JSTOR waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan oo maanta laga raadiyo waraaqada academic ah ama peer reviewed waxa loo yaqaan yani waraaqadaha scientific ah kala duwan oo baaritaamada ah kaliya waxaad u baahan tahay waraaqada ama markaas cilmiga aad raadinaysid ama daraasadda aad raadinaysid inaad haysatid lambarkeeda DOI ga loo yaqaano ama title-keeda inaad haysid haddaadan hayn xitaa waxaad samayn kartaa advanced research yani baaritaan dheeraada aad jirta meel ku wada qoranta ku intaad daabatid aad dooran kartid mawduuca taariikhda hadday tahay mid journal academy mid hadday tahay war article hadday tahay aad kala dooran kartid dhammaan waa mid ka mid ah JSTOR baa jira PubMed baa jira xitaa waxaa jira Google Scholar baa jira oo dhammaantiin waa taqaan laga yaabo Google Scholar waa Google Search ka aan naqaan way ka duwan yihiin markaad si gooni u gashidna mawduucaad ku qortid maanta Soomaaliya ku qortid Soomaaliya waraaqadii laga qoray buugaagta laga qoray daraasadka u dambeeyay laga sameeyay dhammaan ku soo saaray qodobkeena xiga YouTube kan dib ugu soo laabanayna YouTube waxaad ka helaysaan barnaamij ay ka mid tahay TED oo technology entertainment and design loo soo gaabiyay waxaa jirta TEDx ayadoo ah oo dunida dacalada kala duwan lagu sameeyay waxaa jira TED Kids baa jira oo carruurta loogu talagalay waxaa jira Veritasium oo sida mid ka mid ah uu leeyahay nin Canadian ah oo u sameeyay tijaabooyin kala duwan tusaale ahaan oo kale ayaan wuxuu tijaabinayay leerarkan spectrum oo kala duwan oo violet wax dhan ku jiraan oo gamma rays kullu ku jiraan anaga isha bini aadamka inta arki karno iyo inta aan arki karin marka color waxa jira la yiraahdo violet la dhaha jira marka violet hadii maanta uu la gelin lahaa oo ama dunida dhan noqon lahayd qaabka ayaan u arkaynaa kala tusaalooyin sameynaya
طبعا marka asoo lenses iyo cameroon aad khaas u isticmaalaya yani waa mid markaas asna scientific mataqaana experiments tijaabooyin cilmiyeysan oo kala duwan sameeyo oo ardayda maadooyinkaas aad ku daneeya ay wax badan ka siyaasan karaan dhabtii haddii aad tahay qof jecel dabiicada nature-ka qaybadeeda kala duwan ama xayawaanaadka kuwa la mid ah waxaa jira BBC Earth waxaa jira National Geographic baa jira oo ayaguna runtii dhabtii wax badan aad ka siyaasan kartaan qodobkeena ugu dambeeya oo ah online portfolio and networking haddii aad tahay qof xirfad leh markaas video duuba photography sameeya xirfadaha qaybihiisa kala duwan branding graphic design sameeyo kale waxaa jira ayaguna website kala duwan aad marka xirfadaha ku soo bandhigi kartid yani meel fog ha aadanba Instagram-ka aad gacanta ku haysaa maalin walba ayaa wuxuu ku sababi karaa mashruucaaga xiga ugu weyn meesha laga hayr garan lahaa inuu noqdo markaad xirfadaada ku soo bandhigtid Instagram-ka sawirada qaabka u qaadaysid muuqaal ugu dambeeya aduubkana ku soo bandhigtid waa meesha xitaa dadka kugu xiran saaxiibada ah ay ku refer garayn karaan oo dad kale ku soo gudbin karaan waxaa jira sidoo kale Behance oo asoo ah barnaamij Adobe leedahay oo haddaad tahay graphic designer ama branding qof ku fiican oo kale sidoo kale xirfadaha ku soo bandhigi kartid haddii aad rabto markaa inaad fikrado laftooda korsatid waxaa jira website loo yaqaan Dribbble oo markaa asagana aad fikrado iyo idooyin ka qaadan karta qaabka loo sameeyay haddii aad tahay qof videographer oo barnaamijyo duuba oo hay'adaha caalami ah in la shaqeeyo ama la rabto in la hayo lagu hayr gareeyo kale ama xirfadaha soo bandhigtid oo kale YouTube kuwa midka koowaad ku soo bandhigi karta xirfadaada Vimeo ayaa kamid ah sidoo kale inkastoo soo marka qaar lacag yahay haddana laakiinse YouTube waa meel bilaash ah oo marka xirfadaha ku soo bandhigi karta marka inta yar hadda idin la wadaaga jaalayaal waa in yar oo kooban oo si degdeg ah kugu soo xulay laakiin si hadaba intaan ba garanaysid wax badan oo ka siyaasan oo ku darsan kartaa dadaalku waa dhankaaga rabitaanku waa dhankaaga baahiduna maanta dhan walba ee laga daboolay diyaar kala guriga mar kale ka fakar oo mar kale ka faa'iideyso is arag maqal dambe xisaab badan assalaamu calaykum